munaasabadan oo ahayd mid lagu soo bandhigayay isla markaana lagu shaacinayay murashax Salebaan Axmed Carab oo sharaxan doorashada golaha wakiilada ee gobolka Togdheer iyo Mukhtaar Cabdi Maxamuud Baaryare oo sharaxan golaha deegaanka degmada Burco ayaa lagu qabtay Hotel City Palace ee magaalada Burco waxaana munaasabadani ka soo qayb galay hoggaanka sare xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCD madax dhaqameed salaadiin haween dhalinyaro iyo bulshadii soo xushay murashaxiintaasi ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay cuqaasha waxgaradka iyo madax dhaqameedka soo xushay murashaxiintaasi iyo sidoo kale marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadaasi meesha loo yimi shaacin waa Salebaan Axmed Carab Mukhtaar Cali yaanu marka hore doonayna inaanu ku shaacin midnimaduna waxay tartay halkan uga sheegno waxaanu shan jilib iyo walaaladooda aad u taageersan waxaanu dadweynaha ugu careecaynkan shan jilib weeye waa shan jilib oo waligood soo jiray meel sumad la soo dhigi mayno hadii la ka dhigo labada musharax kama walwalsanin oo waan hubaa meesha ay shada reer marayso hadii aanu nimanka hadii la ka dhigo isu soo daba gallo meel sumad labaanu dhigaynaa murashaxiinta waxaan leeyahay niyada adkaysta shaqada mariyaan la dhibin mariyaan looga saarin ilaa aynu maxay dhaahdaa meel magac la tagno hanaga filan ugu yaraan 20 iyo wax ka sareeyo filo xisbiga UCD anigu urushaan bay yiraahdaa imika uu duwayay xisbiga UCD waxaad naga filataa noqon mayno dad la Cabdilqaadir iyo awrkaygan ku kacsanay noqon mayno labada musharaxaanu wadna maaha sida dhacda qaar iyagu isaaciyay oo darbiyada isku dhadhajiyay waa qaar aanu annagu xulanay oo aanu niri bulshada Soomaaliland heer qalinay sharci dejinta iyo golaha deegaanka ayaynu hergaynaa waxaanu hor keenay laba nin raynay niman aan annagu islani waxay idin qabteen maahe waa niman aanu dalka iyo dadkaba isleenay waxa u qabteen waxaan leeyahay Beelaan Bah Axmed inaad iyo aad u dadaashaan nasiibinaya hore tijaabada uga baxdeen woodeedii iyo kartideedina waa leeyihiin waxaan rajaynaa inay noqon doonaan labada xildhibaan ee gobolka ugu codka badan Beeshan Bah Axmed Abdallah sidii ay la shaqayseen doorashada waxaa rajaynaya labada xildhibaan la inay u doortaan oo la shaqaysaan sidii inay noqdaan kuwii Burco wax ka bedeli lahaa war ma isku raacnay inta Bah libaaxay waxaan soo dhaweynayaa marka ugu horeysa labadan murashax Sineer Salebaan Axmed Carab Dr. Mukhtaar waa soo dhaweynayaa ilaahay ha barakeeyo wanaagsan baad yeesheen inamada tanaasulina waan u ducaynaynaa oo ilaahayna Allah barakeeyo hadayna tanaasulin sharaftan iyo waxaan may dhaceen raaceen waxaanu aad u soo dhaweynaynaa labada inan qiimaha leh injineerka iyo doctorka injineer Salebaan iyo Dr. Mukhtaar runtii waa dadkaynu isleenahay isbedel bay inoo sameynayaan waxba inoo tarayaan in wadanka isbedel dhaqaale iyo isbedel siyaasadeed iyo isbedel dhaqanba ka hirgalo labada nin ee ay soo xuleen beelahani ayaa laga arkaa Bah Axmed waa inay soo saartaan inamada hadii lahayd waan soo baxayn insha Allah waan ku rajaynaa waa inoo wada dan xildhibaanada ugu faraha badani inay bahweyntan ka soo baxaan in maalinta bacadka la taagan yahay ee la ordayo si wanaagsan la soo abaabulo codka la soo wada saaro murashax Salebaan Axmed Carab iyo sidoo kale Mukhtaar Cabdi Maxamuud ayaa iyaguna u mahadnaqay bulshadii soo xushay murashaxnimadooda kaga baxday waxaan jagadan isugu soo sharaxay markaan arkay baahida gobolka taala waxaan insha Allah tacaala xooga saari doonaa hadii aan jagada ku soo baxo ilaahay inuu guuleeyo inaanu baahida marka aanu qabanno ee wadadii sameeyno aanu dabagal ku sameeyno wadadii maxaa ku soo kordhay dhirtii maxaa ku soo kordhay waxa soo dhanba insha Allah tacaala hadafkaygu yahay ka inta badan noo soo dhabadadeegay ee ka soo bilaabeen inayna soo xulaan soo gelbiyaan hor keenaan halkaanu imanka marayno ayaan mahadda koowaad horta u celinaya hadda labaad waxaan u celinayaa labadii inan ee noo tanaasulay Maxamed Salebaan Umar ninka mahad gaar baan u celinaya inanka kale sahal isaguna waa la mid shaqadan baarlamaanka waa ogtihiin waa shaqo adag anigu in badanna waan sheegay anigu nin ganacsadaana waan ahay nin samafalaah oo wax dhiso qandaraasyo iyo samafal guud ba bixiyana waan ahay oo meelo badan oo Soomaaliland oo dhan kamida waa ka soo shaqeeyay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCD injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe iyo siyaasi Maxamuud Cali Salebaan Ramaax ayaa iyaguna sheegay in aqbaleen murashaxiintaasi waxaan baan hambalyeynaya labada musharax Salebaan iyo Mukhtaar salaadiinta uqaasha waxgaradka beelaha halkan isugu yimi waa la isasii maal gashanaya walaalayaal marka ugu horeysa waxaan ku bishaareynaa haddaan nahay xisbiga UCD cadaaladda iyo daryeelka inaanu gamco furan ku aqbalay inaanu sharaxno labadiin musharax waana sharafteen ilaahay idin sharfo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa
guddidii beesha ee dadka kala saaraysay doorto way ka muuqataa inaan meesha aan abti ii joogin inaan u abtahay u jeegay way ka muuqataa qaybtan qaatay bay ka muuqataa u amaanaya mubarak bidhi oo isna dadaal weyn galayna oo intaan wada soconayna walaha biqin faysal waxa soo wadnaa ilbihii isna u mahadnaqaya khaliil barra awraan TV-ga qaranka Somaliland magaalada Burco.